waxaa jira habeen aan inta aan noolahay aan ilaawi doonin. Waxaan ka imaaday habeenkaas guriga saaxiibkay, waxaana marayay beer weyn oo ku taalo bannaanka magaalada. Ugu yaraan gurigayga waxaan ku tegi karaa 40 daqiiqo. Gaajo aad u daranna waa ay heesay. Waxaana ka baxay waddo yar oo dhinaca bidix iga soo qabatay, oo aan islahaa gurigaaga tan ayaa u dhow. Balse waddadan waa ay ka duwaneyd midii horeeto, oo waxa ay ahayd mid ay ku yaalaan geedo aad u waaweyn. Gaariga xoog ayaan u waday sababtoo ah waddada waxa ay ahayd mid cidla ah, waxayna ahayd mid leh cabsi aad u daran. Waxaana ahaa mid ay heeso hurdo. Waxaana ku soo aaday meel makhaayad ah. Waxaan isdhahay bal wax yar oo cunto ah ka sii qaado. Meesha waxaa jooga cunug yar, balse wuxuu ahaa mid jiifa. 2 jeer ayaan hoonka u yeeriyay, horey ayuu ku booday asagoo naxsan. Wuxuuna yidhi iga raali noqo, waana yara lulmooday. Okay, dhib ma lahan, waxaan kaa rabay inaad wax yar oo cunto ii keento iyo koob shaah ah. Okay, wax yar isug, soo dhaqso, waan kusii sugayaa. Haye mudane. Cunugii inta uu igu maqnaa cuntada, waxaan isdhahay wax yar musqusha sii gal oo ku soo xaajow. Waxaana ahaa mid soo aaday dhanka musqusha si aan ugu soo xaajoodo. Markaan imaaday musqusha oon galay oon isdhahay iridka xiro, ayaan waxaan arkay kursi bannaanka yaallo oo uu ku fadhiyo qof aanan garanayn, sidoo kalena leh weji aad u cabsi badan. Markii horeeto wuxuu ahaa mid hoos fiirinaya. Hal mar ayuu madaxiisa kor u qaaday uuna bilaabay inuu soo fiiriyo. Wuxuu bilaabay inuu dhoola caddeeyo. Wuxuuna lahaa weji aad u cabsi badan iyo timo dhaadheer oo guduudan. Waxaa ka sii daran ilkihiisa oo ahaa kuwo jajaban, lehna cabsi gooni ah iyagana. Waa uu dhoola caddeynayay. Aad ayaan uga cabsaday, wuxuuna igu abuuray cabsi daran. waan isdejiyey, ismana aanu waalin. Waa uu istaagay, waxa uuna bilaabay inuu ordo asaga oo taagan, taasoo igu abuurtay cabsi kaleeto. Waan naxay, horey ayaan iridka xiray anigoo aad u cabsanaya. Ayaan haddana hooshayda hore iskaga sii watay, wax kastana waan iska indhatirayay. Waxaana ahaa mid aamusan oona hadlaynin. waxaana ku fikiraya waxa aan samayn doono marka aan iridka furo iyo waxa dhici doono. waxaan maqal qaylada cunugii. hal mar ayaana si kedis iridka loo soo garaacay, taasoo igu abuurtay cabsi kaleeto. markaasaan waxaan maqlay cunuga codkiisoo leh, mudane iga fur iridka. waan ka furay, waaba cunugii yaraa. adeer, cuntada ayaan ku keenay, soo ma qaadanaysid bis meesha ayaad ku cunaysaa? maya, waan qaadanayaa. Okay, waan soo baxay. hal mar ayaan waxaa fiiriyay kursigii uu ninka fadhiyey, balse qof ma fadhido, waana cidlo meesha dhan. wiilka ayaa la yaaba, meesha ayuu niila fiiriyey, wuxuuna i weydiiyey wax dhib ah miyaa jiro? maya, waxay ila daayay inuu qof meeshaas taagnaa, qofkaasoo lahaa weji cabsi leh iyo timo dhaadheer. ma aqaan waxa aad ka hadlayso iyo mawduucaas. ma jiraa nin meeshaan imaado oo qaabkaas aan ku tilmaamaya ah? ma aqaan, weligeyna ma arkin. meeshan xilli walba waxaan ahay mid aniga jooga, waxaasaad sheegaysana weligey ma arkin. waan isku xishooday, waxaan isdhahay wiilka amuu kula yaabaa, ninkaan weyn oo waxaas ka cabsanaya muxuu yahay? ayaan si degdeg u soo raacay. anigana aniga isoo fiirinaya. shaqada ayaan fiiri dibdiis aan u qaato hawl firish ah cawqabow. sida ayaad ka soo socday anigoo ah mid aad u fikiraya, lana yaaban wixii uu maanta soo arkay. hal mar ayaan waxaan isdhahay bal daaro muusiga si aad ugu degto. markiiba waxaa bilowday qosol aan aqoon meel iga soo gaarayo. waxaan ogaaday in gaarigayga dhankiisa dambe la saaran yahay. waxaana iga soo da'ay dhidid aad u badan. muraayad ayaana ka fiiriyey, waxaana arkay timo dhaadheer oo leh cabsi. waan naxay. nalalka waddada ayaana
wejigiisa i tusay waaba ninkii hadaayeeto